السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان أمد الصوماليات ميلو البود جوكتين سو دوادا وحان إذن كعد سنة يعدو فيديو وان إذن سو قارنا سبسكرايب لايك شير كومنت قروح بدن أتكسو بعيسان لايك اسكسار لايك تلعق معهم وفري وحين فيديو قارسين كرتا أما يوتيوب كي قارسين كرتا ميل ساري ان مانتا وحان إذن هايا ور حساسية أما الشالي وحوصو قال لايف shalay marka uu live ka soo gala Sufyaan wuxuu sheegay oo afkiisa ka qirtay in dawladda Soomaaliya ay u ballan qaaday lacag aad u fara badan iyo agaasime oo asaguna ka diiday wuxuu afkiisa ka sheegay dawladda Talyaaniga ay waxbarasho uga bixin jirtay lacag aad u fara badan waxa kale todo aad u xasaasiya oo aad iyo aad ani iiga yaabiye wuxuu sheegay inay yihiin team dhowr iyo 20 aqoon-yahana rabana inay bedelaan calanka Soomaaliya oo asagu ka aaminsan yahay sida uu afkiisa ka sheegay teamkiisuna ay ka aaminsan yihiin inuu yahay calan Kristaan maanta waxa waraysi ka qaaday Cabdi Xafiid oo waraysi uga qaaday studio-ga Nairobi wuxuuna u shiday heestii calanka hoos u jeestay ma ogolayn asaga balse waxaan idin daari doona ama aan wada arki doona Cabdi Xafiid iyo asaga wixii kala dhexmaray aanan wax kale u guda galinin waxaan jecelahay hadii Ilaahay yiraahdo adigana waa kugu marti qaadayna hadad naga yeelaysid inaanu ku bilowno bal marka hore heesta calanka si aan u qadarino awooyaasheenkii u dagaalamay xornimada iyo horumarka waxaan saaraynaa heesta calanka dabadeedna calanka laftigiisa iyo dadkii u halgamay ayaan salaan u saaraynaa haddaan nahay Soomaali adiguna waa kugu marti qaadayna haddaad diyaar tahay soo dhawow wuxuu sheegay ninkan inuusan aaminsaneyn calanka Soomaaliya oo ay tahay calaamad Kristaan calaamadaasna ay caabudaan dadka Soomaaliya ayna tahay wax shirkiya ama wax kufriya saas darteed Cabdi Xafiid wuxuu u shiday heestii Soomaaliya waxayna la naqatay wax asaga maskaxdiisa ka weyn waraysigan si guda gali doona haduu Ilaahay yiraahdo daawasho inaad adigu Sufyaan Sheekh Axmedow gacantaada ku dishay wariye Mahdi aadan Xasan gacantaada dishay waa sida hadalka loo dhigay Maxamed Cali Salaad Xanke inaad gacantaada adigu ku dishay Cabdi Sheekh Cali inaad gacantaada ku dishay waa sida hadalka loo dhigay Maxamed Nuur inaad gacantaada adigu hadal ku dishay waa loo dhigay Cabdulqaadir Cali Iidle oo ahaa wariyeyaal afar ka mid ah isku meel aad ku dishay Radio Muqdisho أنت محكي جوابي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maleynayaa inaad dhageysatay live-kii xala soo galay waxaan kaloon maleynayaa bulshada Soomaaliyeed inay ka dharagsan tahay jawaabteeda waqtigan xaadirka ah arintaas iyada ahi waxa laga sugayaa dabcan qofkii keenay inuu cadeynteeda soo daba dhigo arintaasi aniga dhinaciga sidaan xalaba u yiri wax ka jira malaha eedaynta waa dafaraaya wax kale uguma jawaabi lahaynin eedaynta waa dafaraaya asaguna wuu dafaraaya in marnaba maadan oranin anigu waxaan bari ka ahay shanta shaqsi oo la sheegay oo magacyadooda aan ku sheegay ayaan bari ka ahay hadda fursad ayaad haysataa inta aadan jawaabin waxaan ku sheegayaa inaan ku daba jiro qoysaskoodii oo aan soo ogaan doono say wax u dhaceen ayagana wuxuu yiri Sufyaan inaan dilay 5 nin oo 4 nin aan isku meel ku dilay waliba raadiyaha dhexdiisa aan ku dilay wax ka jira malahan wuxuu u sheegay Cabdi Xafiid inuu arintaas ku dhex jiro ku daba jiro arintaas oo ku daba jiro soona caday doono sida ay noqoto iyo waxa ay ku qaadataba
arrintu waa xasaasi hadduu ilaahay yiraahdo waxa weeyaan anigu nin mutacallim aan ahay waa fahmi karaa angalka aad ka soo gelaysay waxaad iga codsatay inaan waraysi kaa siiyo arrinta calanka arrintan jawaabta kaafiga ay ku dhan tahay waxay tahay inaan ku iri maya arrintaas ma samayn waxaan jeclahay halkaas inaad uga hartid ilaa aad soo heshid caddayn kale laakiin inaad ku celceliso oo aad macnaha wixii hadalkaaga ay ku soo celceliso waxaan ka dhadhaminayaa inaad adigu laftirkaagu eedaynta dhinac ka watid haddii ay sidaas tahay ii sheeg haddaysan ahayn waa kuuga jawaabay su-aasha waxaan ku iri maya wariye cabdixafiid inuu ku daba jiro caddayntaasna uu insha allahu tacaala miiska soo saari doono uuna soo xaqiiji doono inuu yahay sufyaan gacan ku dhiigle dilay shantaas ninna waxaa la sheegay haddaysan hadalka uusan idinka hoos bixin 1991 ugu dambeyntii waxaa dhaca dagaalkaasoo aanan gaarin isgacanqaad laakiin u ekaaday amba u dhawaaday in gacanta laysu qaado iyadoo hadalka uu xumaaday xumaantuna ay keentay aniga waxaan ku weydiiyey su-aashii ugu habbooneeday iyo aniga uma imaanin inaad su-aashaas i weydiiso dabcan sufyaan ma rabin in la weydiiyo su-aasha ma nin baa dishay asagu wuxuu isu soo diyaariyey in la weydiinayo calanka maxaad ka qabtaa ama maxaad ka aaminsantaa balse arrintaasi hore ayaa loo weydiiyey uuna sheegay waxa uu ka aaminsan yahay waa salaamintiin asxaabta waxaan idinka codsanaa hadduu fiideoga idin soo gaarin aad subscribe like share comment qurux badan aad ka bixisaan fiideoga iyo waraysigan reactionka aan ka bixinaynana wuxuu noogu egayaa halkan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu